muddooyinkii ugu dambeeyay dadweynaha ku dhaqan deegaanka Cadaad ee gobolka Nowdal waxa haystay baahi dhanka caafimaadka ah waxaana deegaankaasi maanta lagu dhagax dhigay xarun caafimaad oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan hooyooyinka iyo dhalaanka deegaankaasi Cadaad ee gobolka Nowdal ku dhaqan madashii lagu dhagax dhigay xaruntan caafimaad waxa ka hadlay Suldaan Yuusuf Axmed Cadar iyo Marwo Foosiye Xasan Iimaan waxayna ka warameen waxyaabaha ay xaruntan caafimaad ku soo kordhin doonto deegaankan Cadaad ee gobolka Nowdal joogta u dhalatay gobolada Nowdal iyo Salel oo isku soo xilqaamay isgood inay isbitaal ugu dhisaan deegaankan ay ku xeersan Cadaad oo ku weersan tuulooyin badan oo khadar maxaan ku dhahdaa ilaa weerar inta u dhaxaysa aan maartay dhul aad u ballaadhana oo wax isbitaal ah oo ka dhisan maanta oo loogu maxaan ku dhahdaa la keenay karo qof bukooday ayna jirin ayay isgood isku soo xilqaameen inay u sameeyaan isbitaal guud oo leh ka kooban hal hool oo maxaan ku dhahay rag ah waar dumarka ah waar caruurta ah awdeeshinadii iyo hal masjid oo ka dhisi doonaan insha Allah bismillaahir karim hadii ilaahay yiraahdo dadweynahan sharafta leh ee maanta iskugu yimid halkana waa dadkii ka shaqeynayay meesha waa dadkii deegaanka ahaa deeganaa waxaan ilaahay ka baryeeyaa inay ku darsan doonaan khayrka la soo wado iyaguna ay qaybtooda ku darsan doonaan insha Allah xoogooga iyo maalba waxay helaan insha Allah halkan waxay ahayd meel aad loogu cadaleeyay oo kamid ahayd dhulka waxa loo muuqata ilaa Boorama iyo Baki iyo maxaan ku dhahdaayay Sayla iyo Boon inta ka dhaxaysay wax dhakhtar oo haba yaraatay uga dhaw ma jirto mid walibana waxay jirtaa ilaa 40 ilaa 37 kiiloomitir u yaraan taqriiban sida daraadeed qofka bukooda ama gabadha umulaysa dhibaato badan iyo isku go iyo dhimasho badan iyo dhaawac badan bay keeni jirtay taabta laga gurmanaya in maanta loo joojiyo oo loo dhiso makaan haweenkuna ku nastaan laga umuliyo kabuka lagu daweeyo qadaawaca lagu dhayo si walba lagu qabsado ayaaba maanta halkan dhagaxeegii aan dhigaynaa tulada Cadaad sidoo kale qaar kamid ah dadka deegaankan ayaa iyaguna waxay ugu mahad celiyeen qurba jooga gobolada Awdal iyo Salel ka soo jeeda ee kaalinta muuqata ka ciyaaray sidii deegaankan uu heli lahaa xarun caafimaad boqolkiiba boqol haweenka hablaha qurba jooga Salel iyo Awdal iyo inamaba dadka u dhashay dhamaantood inay ka soo qayb qaataan oo Ingiriiska ku nool meelkas iyo dalka gudihiisa inay ka soo qayb galaan ilaahayna waxa ka rajaynaynaa inuu dadaalka noo rumeeyo dadka arrinkaasi maxaan ku raacdaa talaabada qaadayna ilaahay inuu fududeeyaan ugu ducaynaynaa si kastaba haatee deegaanka Cadaad ee gobolka Nowdal waxa uu yahay deegaan taariikh dheer ku leh gobolka Nowdal waxaana xusid mudan in deegaankan Cadaad ee gobolka Nowdal taariikhda inta la ogsoon yahay aan laga hirgelin xarun caafimaad waxayna xaruntan noqon doontaa mid wax weyn ka bedeli doonta baahida dhanka caafimaadka ah ee dadka deegaankan Cadaad ee gobolka Nowdal ku dhaqan haysatay Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama